ku-xigeenka ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan dalalka Soomaaliland iyo Soomaaliya ayaa waxa uu kulanay warbaahintu dibad joog ka ahayd la yeeshay xubno ka tirsan golaha wasiirada ee xukuumadda Soomaaliland. kulankaasi oo saacada qaatay ayaa markii uu soo dhamaaday waxa warbaahinta si wada jir ah ula hadlay wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka Cawaale Ibraahim Shirwa iyo ku-xigeenka ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan dalalka Soomaaliland iyo Soomaaliya Mr. Peter Clark. ugu horeyn waxa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka Soomaaliland Cawaale Ibraahim Shirwa waxaanu faahfaahin ka bixiyay kulankani ay yeesheen. maanta waxa halkan nagu soo booqday wakiil ku-xigeenka ninka u fadhiya qaramada midoobay waxa uu noogu yimiday kadib electionkii doorashooyinkii dhacay ee successfulka ahaa waxa uu soo jeestay wadankeena dadka aynu la shaqeyno partnerskeena United Nationska iyo wadamada kaleba waxay muujiyeen inaynu horumar ka sameynay deganaanshaha iyo dawladnimada. waxaan wada yeelanay sida ay wasiiradii kale oo halkan ila jooga wada hadal dheer oo ku saabsan horumarka qaranka iyo sidii wadankeena ay u gaarsiin lahaayeen fariintan horumarkan ka sameynay dhinacyo walba. waxa uu Mr. Peter Clark noo sheegay inuu ku faraxsan yahay doorashooyinka dhacay iyo horumarkan sameynay in uu nagala shaqeyn doono horumarka. anaguna aad baan ugu faraxsanahay waxaan u ballan qaadnay inaanu kala shaqeyno dhinac walba. Mr. Peter Clark oo isna madashaasi ka hadlay ayaa yidhi Somaliland, particularly on the issues of the drought that continues to plague the country and that requires a lot of support and a lot of tani waxay ka mid tahay qorshahaanu ku eegayno abaarta baahsan ee Soomaaliland ka dhacday iyo sidaan uga qayb qaadan lahayn cunto iyo raashin la gaarsiiyo dadka ay abaaruhu saameeyeen. waxa kale oo aanu eegi doonaa dhinacyada nabadgelyada iyo meelaha u baahan maalgashi sectors of the economy including fisheries, livestock and also in the urban areas where there are very great needs as a result of the major displacement that has taken place. Xamse Aidid Maxamed, telefishinka qaranka Soomaaliland, caasimadda Hargeysa.